kuna wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah toddobaadka dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed oo sanadkiisii 10aad maanta London ka furmay Turkiga oo ku gacan seeray wararka Sacuudiga ka soo yeeray ee dilka Jamal Khashoggi taariikhyaal geeriyooday kadib markii ay doon kula qalibantay xeebaha dalka Turkiga ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa aynu ku bilownay bandhiga toddobaadka dhaqanka suugaanta Soomaaliyeed ee sanad kasta la qabto ayaa maanta ka furmay magaalada London ee waddanka Ingiriiska toddobaadkan waxaa loo dabaldegayaa 10 sano guuradii ka soo wareegtay asaaska bandhigan wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ka qayb galay furitaanka bandhigan Ridwaan Haye aad iyo aad baa u mahadsan tahay Somali Week ama toddobaadka dhaqanka Soomaalida wali waa u socdaa waxaana uu dhammaan doonaa 28 bishan waa sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegtay tan iyo markii la bilaabay bandhigan oo ay ka soo qayb galaan dad caana isla markaana bulshada Soomaalidu ay ka faa'iidaan waxyaabo fara badan oo dhaqankooda muhiim u ah sanadkan waxaa barnaamijka toddobaadka Soomaalida ama bandhiga toddobaadka Soomaalida iyo dhaqankooda furay meeyarka ama duqa magaalada London Sadiq Khan oo sheegay in dadka Soomaalidu ay qayb ka yihiin dhaqanka iyo ganacsiga bulshooyinka kala duwan ee dalkan Britain waxaana uu ku ammaanay sida loogu baahan yahay in horay mar kastaba dadka Soomaalidu ay ugu wadaan in dhalinyarada iyo waxyaabaha ay jecel yihiin la hormariyo isagoo ballan qaaday in mashaariic fara badan ay samayn doonaan si dhalinyarada hal abuurka leh loo caawiyo waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay afka Soomaaliga oo qayb ka noqon doona bandhiga Somali Week ee toddobaadkan Sadiq Khan intii uu hadlayay waxa uu soo xigtay gabayga caanka ah ee Abwaan Hadraawi ee loo yaqaano sirta nolosha waxa kale oo uu sheegay in run ahaantii uu doonayo in loo arko dhaqanku inuu yahay wax muhiim ah oo dadka isku keeni kara dadka sida weyn uga soo qayb galay bandhigan ee lagu marti qaaday waxa kamid ah fanaaniin caan ah sida Axmed Cali Cigaal iyo Hiban Nuura waxa kale oo iyana jooga abwaano ay kamid yihiin Abwaan Weersame iyo Abwaan Deeg furitaanka waxa iyana ka qayb galay dad qorayaal iyo wariyaal caan ah waxa kamid ah Raage Omar oo ka tirsan telefishinka ITV oo dadka Soomaalida iyo dadyowga kale ee caalamkuba ay si weyn u garanayaan waxa kale oo isna bandhiga lagu marti qaaday Haruun Macruuf oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da iyo sidoo kale Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi marka toddobaadkan waa runtii toddobaad xiiso leh oo dadka Soomaalida inta uu socdo ay uga faa'iideysan doonaan gabayada taariikhda iyo heesaha ay soo bandhigi doonaan fanaaniinta caanka ah hadduu eebbaha awoodda laheedmo aad baad mahadsantahay Ridwaan dowladda Turkiga ayaa gaashaanka u dururtay warka sheegashada Saudi Arabia ka soo yeeray ku aadan in wariye Jamal Khashoggi uu ku dhintay gacan ka hadal ka dhacay qunsuliyadda dowladda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga afayeenka xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee dalka Turkiga ayaa sheegay in dilka Jamal Khashoggi uu ahaa dhagar hore loo sii qorsheeyay isla mar ahaantaasina si bahalnimo loo maleegay Jaafar Kukay ayaa inoo faahfaahinaya la taliyaha madaxweynaha Turkiga Yaasiin Aktay ayaa sheegay in su'aasha ugu horeysa ee uu qofku isweydiinayo ay tahay sida ay ku suuroobi karto in gacanta ay ku dagaalamaan 15 dhalinyaro dagaalyahana iyo Khashoggi oo 60 sano jira wax hub ahna aan sidan Aktay oo saaxiib dawla ah Khashoggi ayaa wargeys Turkiga ka soo baxa ku qoray waxa jira dad ku ciyaaraya oo dhayalsanaya sirdoonkeena madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray isagana inuu talaadada berrita ashaaca ka qaadi doono faahfaahinta dilka Khashoggi marka uu hortago baarlamaanka isagoo axadii dadweyne kula hadlaya Istanbul ayuu yiri waxaan raadinaynaa cadeymo waxaanan shaaca ka qaadi doonaa runta qayaxan Erdogan ayaa isla axadii khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana sida ay warbaahinta dowladda Turkigu sheegtay ay isku raaceen in la cadeeyo dhammaan waxyaabaha ku xiran dilka kiiska Khashoggi warar soo baxaya ayaa sheegaya in wiilasha uu dhalay Jamal Khashoggi ay ka soo socdaaleen waddanka Imaaraadka Carabta iyagoo yimid magaalada Washington wararku waxa ay sheegayaan in ay la kulmeen xubno ka tirsan Koongareeska Mareykanka
wiilasha khashoggi ayaa la sheegayaa in ay kiraysteen mid ka mid a sharikadaha ugu waaweyn garyaqaanada Maraykanka si ay dacwad ugu soo ogaan qaar ka tirsan mas-uuliyiinta Sacuudiga oo ay tuhunsan yihiin in ay ku lug leeyihiin dilka aabahood. dhinaca kalena Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in dhaxal sugay Maxamed bin Salmaan uu khadka telefoonka kula hadlay wiilka suxufiga la dilay ee Jamaal Khashoggi si uu uga tacsiyeeyo geerida aabihiis. wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Al-Jubayr ayaa isagana dilka Khashoggi ku tilmaamay dembi weyn waxaanu sheegay in kuwii ka dambeeyey lala xisaabtami doono. Al-Jubayr oo u waramayay TV-ga Fox News ayaa sheegay in dowladdiisu aanay ka warhaynin halka uu ku dambeeyo meydka wariyaha. Sacuudiga ayaa horey u sheegay in gacanka hadal ka dhacay qunsuliyadda gudaheeda lagu dilay Khashoggi. Maraykanka ayaa soo dhoweeyay hadalka Sacuudiyaanku ay ku sheegeen in Khashoggi si aan ku talagal ahayn loogu dilay gudaha qunsuliyadooda. hase yeeshee dalal badan oo qaaradda Yurub ku yaala ayaa qirashada Sacuudiga ku tilmaamay mid qabyo ah, waxaanay dalbadeen in boqortooyadu ay faahfaahin dheeri ah oo lagu qanci karo ka bixiso dilka wariyahaasi loo geystay. Khashoggi ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 2 bishan Oktoobar. ciidamada ilaalada xeebaha dalka Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in 2 ruux ay isniinta maanta dhinteen kadib markii doon ay la socdeen dad tahriibiyaal ay kula qarqantay meel 50 kilomitir u jirta xeebaha magaalada Bodrum ee galbeedka wadanka Turkiga. warka soo baxay ilaalada xeebaha Turkiga ayaa lagu sheegay in 3 ruux ay suuro gashay inay dabaal xeebta ku yimaadaan, hase yeeshee 2 ka mid ah ay goor dambe cisbitaalka ku geeriyoodeen. ciidamada ayaa sheegay in weli ay ku howlan yihiin baadigoobka iyo soo badbaadinta dadka kale ee weli maqan, kuwaas oo la rumaysan yahay inay weli nool yihiin. ilaa iyo hadda lama sheegin wadamada ay ka soo jeedaan muhaajiriintaasi ay doontu la qallibantay. dalka Turkiga waa mid ka mid ah wadamada ay tahriibiyaasha ka soo cararaya dagaalada iyo saboolnimada ka jirta qaybo ka mid ah bariga dhexe iyo Afrika ay ka dhigtaan dhabo ay u sii maraan dowladaha ku yaala qaaradda Yurub. ku dhawaad 300 oo muhaajir ayaa waxay weerareen derbi ka samaysan silig oo ku yaala xadka dalalka Spain iyo Morocco ee waqooyiga Afrika, waxaana goobta ku dhintay 1 ruux iyadoo la sheegay in 200 ruux oo kale ay u suura gashay in gudaha dalka Spain galaan. wakiilka dowladda Spain ee Melilla ayaa sheegay in muhaajirka dhintay ay u egtahay inuu u go'ay wadna xanuun, iyadoo sidoo kale kooxaha gurmadka degdega ay isku dayeen inay badbaadiyaan. wakiilka ayaa sheegay in sidoo kale 19 muhaajir ay u baahdeen in la dhigo isbitaal, kuwaasoo dhaawacyo isugu jira jabniin iyo nabarro kale ka soo gaaray kadib markii ay isku dayeen inay jiraan siliga xadka labada dal. dhammaan dadkaasi ayaa rag ahaa. saraakiil ayaa ku waramay in 200 muhaajir ay galeen dhulka Spain. 6 ilaalada rayidka oo meesha jooga ayaa sidoo kale dhaawacmay, kuwaas oo xaaladooda aysan darnayn. dhinaca kale ciidamada badda Spain ayaa soo badbaadiyay xaddi 140 muhaajir oo ku socday doon yar gudaha badda Mediterranean-ka. Spain ayaa sanadkan waxay la tacaalaysaa muhaajiriin fara badan, kuwaas oo isku dayaya inay gaaraan dalalka kale ee midowga Yurub. haatanna waa xubintii ciyaaraha. wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa soo jeedinaya. wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena qubanaha maanta. wadanka Talyaaniga ku bilaabaya kooxaha kubadda cagta Inter iyo AC Milan ayaa ku kulmay gegida San Siro Stadium ee magaalada Milano oo ah garoon ay labada kooxood ku wada ciyaaraan. inkastoo habeenkii xalay ay kooxda kubadda cagta Inter Milan taageerayaasheedu garoonka ugu badnaayeen maadaama iyadu guri ahaan ugu ciyaaraysay, haddana labada kooxood kubadda ay soo bandhigeen waxay ahayd mid isu dheelitiran, inkastoo Inter Milan ay gacan sarreysay inta badan isla markaana ay u qalantay inay guulaysato 90 daqiiqo ciyaarta oo daqiiqada dheeriya lagu daray 2 daqiiqo oo kamid ah markii la ciyaaray. ciyaaryahan Mauro Icardi, wiilka reer Argentina ee kabtanka u qaata kooxda Inter Milan, uu goolkii guusha u dhaliyay kooxda Inter. sidaasina AC Milan waxaa garoonka ka huleeshay iyadoo madaxa laadlaadinaysa wax guulana aan helin. waxay u keentay taasi kooxda Inter Milan inay horyaalka wadankaasi kaalinta 3aad ay ka soo gasho, waxaana AC Milan iyana ay haatan fadhisaa kaalinta 12aad. waa xusid mudan ciyaaryahan Yangalama, wiilka reer Belgium, in uu ciyaartaasi qaybtii hore kaga dhaawacmay oo xidig ay kooxdu ku dhaarato isla markaasina qadka dhexe ku faagta. ciyaaryahankan ayaa waxa uu maqnaan doonaa kulanka kooxdu ay Barcelona la ciyaarayso oo kooxdaasi lafteeda uu ciyaaryahan Lionel Messi ka maqan yahay.
goordhowna wadanka ingiriiska waxaa kulan xiiso badan horyaalka wadankaasi ka tirsan uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Leicester City. ciyaartan ayaa ku soo beegmaysa xilli kooxda Arsenal ay 9kii kulan ee ugu dambeysay badisay, waxaana kulankan haddii ay badiso uu noqonayaa kulankii 10aad oo xiriir ah oo kooxdu ay badiso. ciyaaryahan Mesut Ozil oo dhaawac kaga maqnaa kulankii u dambeeyay kooxda ciyaartay ayaa la filayaa garoonka inuu ku soo noqdo macalinkiisa. warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in ciyaaryahan Ozil iscasilaadii uu qaranka iska casilay ay faa'iido badan ugu jirto kooxdiisa Arsenal, isla markaasina uu macalinku shaxda uu wato ciyaaryahan ku helayo waqti uu ku fahmo. baritana kulan la sugayo oo taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu ay si aad isha ugu hayn doonaan ayaa gegida Old Trafford ee magaalada Manchester waxaa isugu soo imanaya labada kooxood ee Manchester United iyo Juventus. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horeysay isagoo xiran maaliyadda Juventus waxa uu ku soo noqonayaa garoonkii 75,000 ee taageerayaasha Manchester ay uga sacbin jireen maalmihii uu kubadda sida xirfadaysan garoonkaasi ugu maamuli jiray. daawadayaal xubintii ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe ama sacadooyda la sida iyo nabadgelyo. intaasina waxaa ku eg barnaamijkeenii qubanaha maanta. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.